ujeedada shirkan jaraa'idaan u qabanayna waxay tahay mudaharaadka waxyeeladii ka dhacday ee dhimasho iyo dhaawacba lahayd maalintii la aasayay 3 nin wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Saciid Sulub Maxamed foolxumadii kaga dhacday halkaa ayaan isku taagayna bal wixii nagaga haboon waxaan oran lahaa habar yoonis nin kursiga fadhiya iyo nin ku soo socda labadaba waynu leenahay waa ninka kursiga fadhiya ee siyaasadda ku metelaya reerka dhammaanteenba ee aanan aqoonsanaynba wasiir kale inuu reerku meesha ku leeyahay ilaa iyo inantaa mooyaane arrin Saciidba wasiirka quree kaga jira xukuumadda dee in la xagxagto oo la fool xumeeyo oo laga fadilo waxaanu ahayn lagu sheega waa ceeb intaa haddaan ka gudbo warka ku soo socdana ha lagu xaq dhowro damaciisa uu ku soo socdo kursiga war wasiirka siyaasadda inagu metelaya Saciid Sulubna ha laga xishoodo foolxumadii halkaa kaga dhacday waanu ka xunnahay wasiirkana waxaan leeyahay waa dadkaad xukumaysay waysadaadii unbaa kugu qubatay xigta ahaan baad uga soo qayb gashay adigu inta kale xukuumaddaba waad ka xigtay dadka dhintay dee dowladdii laysay way qaadatay adna xigtaad uga soo qayb gashay laysla garan waa waxaanu meeshan kaga hadlaynaa arrintii ku dhacday Saciid Sulub nin dadkiisii u soo gulmaday oo aas yimi oo la xagxagtay waa mid ceebade waananu ka xunnahay arrin xunna weeyaan ma garanaysa ee mucaalid iyo maxaafitoona dee uma wanaagsana arrintaa wasiirka ku dhacday Saciid Sulub waanu ka xunnahay aad baan uga xunnahay waxa weeyaan waa foolxumo waa meel ka dhac wasiirro kala joogay lama hadlin waxaan u arkaynaa arrintaasi inay arrin annagana taabanaysa ay tahay wasiirro kala joogay lama shiidin gaari lagama jajabin lagama maagin waxa meesha keenayna dadku ka xigo dad nin wasiir habar yooris abu ahaa dadka meesha ku dhintayna habar yooris bay ahaayeen waxa weeyaan kuwa sidaa laajigeed buu ugu yimi in taa lagu sameeyo waa meel ka dhac waanaanu ka xunnahay arrintaa dee xaal iyo bolojiisna waxaanu leenahay wasiir adigu annaga xaal ku siina dadkii kala garan waaya inuu xaal ku siiyee annaga xaal iyo bolojiis ku siina wasiirka Saciid Sulub arrintii maalintii dhawaato dadkii mudaharaadkii ku geeriyooday ee reerka ahaa ee uu ka soo qayb galay halkaa foolxumadii kaga dhacday waanu ka raali gelinaynaa haddaannu nahay qabiilka Xirsi Cismaan la yidhaaha oo isku dhan haddaannu nahay marka waxaannu leenahay adiguna wasiir waa in dadka ay isku dhacdeen dadkii aad xukumaysay ama xigtadaada ahaa uu yahay adiguna sidaa waa inaad raalli ku ahaato rasuulka ilaahay baa doortay xagga samada laga magacaabaa xagga rabbi baa laga magacaabaa beel ahaanna waxa weeye wasiir ka soo jeeda beel cid kastaba ha ahaato macnaan magacaaba kala reebin waa mas-uul cidda matala odhan maayo ree hebel baa wax yeelay ama ree hebel baa caynkan yeelay ama caynkaa waxaan leeyahay ciddii foolxumadaa ku kacdayba meel ka dhac bay samaysay dadka munkasta ah ee meeshaa wasiirka shiiday ee gacanta ula tegey ee riixriixay ee shiiday waa cambaaraynayna waana ka xunnahay aad iyo aad baanan uga xunnahay sacaadatu wasiir adigana waxaan ku leenahay arrintaa xaal iyo bolojiis baanu ka bixinaynaa waananu cambaaraynaynaa wixii dadka munkastaa ka yimina xaal iyo bolojiis baanu ka bixinaynaa adiguna dee wasiirna waad noogu too siyaasaddana adaa nugu matela sandaladana maanta dee adaa nugu matelo qoyskayagan baad ka mid tahay aadna waanu cambaaraynaa Saciidna waxaan leenahay dee oday baa tahayoo dee oday waa la xagxagtaa weligiiba kii la xagxagto ayay mas-uuliyadda iyo kursiga iyo xagxagashada leh adiguna Maxamed Saciid waxaan leeyahay Saciid dulqaad ogow arrinkaa horena lagaaga siin waayay xaal iyo bolojiis intayadan meesha maanta timi xaal iyo bolojiis baanu arrinkaa kaa siinay taasina waa taa runta laga maarmayso roog ilaa oo lagu
dhacay ayaankii halka loo riyaaqay raalliyadii wacniyadii raaligelisay dumarkii waa raamiya professional beauty hairstyle and teaching way ku raaligeliyeen adbawaad riyaaqi raamiya balsoo aragti maa ku roolaan rakibaadda quruxda iyo qaabkan loo raseeyey raamiyaha nuugaan wejigaaga dheehayo dhalaalkiisa nuur kale fiitamiino dhowraa raamiye ka helaysa barashada qurxinta iyo nafaqaynta jidhka timaha wejiga taasoo ay duruusina iyo ku sii degto khabiir muddo badan dalka dibadiisa wax ka soo dhigaysay waxa uu ku yaallaa iridda galbeed ee laga soo galo suuqa Gobonimo gaar ahaan ka soo jeedka kaabada xisbiga ee Gobonimo wixii faahfaahinta dheer waxay kala xiriiraan telefoonada shaashada idinka muuqda